don't accept this kind of Islam. And the problem is they define what is Islam and what not. They put this narrative since more than 15 years that haweenku maalin walba waa maalintooda, mana mudna in la yiraahdo hal maalin ay dunida ku leeyihiin oo inta kale la xasuusan maayo. kulay waa dhaqan reer galbeed oo inagana ina saameeyay, balse wax rajo ah uu leeyahay ma jirto. bal waxaynu halkan ku eegi doonaa maalintaasi waxay tarto iyo waxa kale ku soo dhawaada Mustafa Maax. qiimaha dumarka Ilaahay ayaa quraankiisa ku sheegay oo wuxuu soo dejiyay suurad dhan oo la yiraahdo suuratu Nisaa. waxayna ogsoonahay sharafta iyo qiimaha ay ku leeyihiin dhexdeena hadaynu nahay muslimiinta. bal haddaba maalinta reer galbeedku ay dumarka siiyeen maxay nolosha asaasiga u siin weeday dumarka muslimiinta ah ee dalalkooda ku nool. axadiina dhaafay dalka Switzerland waxaa laga mamnuucay xijaabka iyo niqaabka kadib markii shacabka dalkaasi ay u codeeyeen in la mamnuuco xijaabka iyo niqaabka. codeyntu waxay u kala dhacday sida tan: 50% waxay u codeeyeen in la mamnuuco, halkii 48% ay ka soo horjeesteen. sidaa daraadeed waxaa badatay inta ka soo horjeeda xijaabka iyo niqaabka ay dumarka muslimiinta xidhaan, waxaana sidaa lagu mamnuucay gebi ahaan xijaabka iyo niqaabka dalkaasi Switzerland. waa maalin ka hor maalintii ay u bixiyeen maalinta haweenka. maxay maalintaas wax ugu qaban weyday dumarkana leeyahay kana xidhan, kan tuur, kan xidho. waa maalin afkaas laga sheego oo la doonayo in lagu burburiyo dhaqanka muslimiinta ee wanaagsan. halka ayuu ku eegay maanta barnaamijkeenu. inta mar labaad kulmi doonana, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. We don't accept this kind of Islam. And the problem is they define what is Islam and what not. They put this narrative since more than 15 years that women with niqab are extremism, women with niqab are radical. The people behind this initiative are not known here in Switzerland by their commitment to the cause of women. This referendum is launched by the same group as launched several years ago the initiative to ban the minarets. Back in 2009, they used for the advertising posters women with niqab next to the minaret. So for us Muslims here in Switzerland, it was very clear from the very